habeennimadii xalay waxa hoteelka Damal ee magaalada Hargeysa lagu qabtay xaflad ballaaran oo soo qaban qaabisay jaaliyadda Somaliland ee dalka Holland oo gacan ka helaysa dawladda Holland iyo dawladda hoose ee magaalada Hargeysa. xafladan ayaa lagu xuseeyay maalinta qaranimada ee dalka Holland oo ku beegnayd habeennimadii xalay, waxaana sidoo kale bulshada loogu baaqay inay ka qayb qaataan gurmadka suuqa Waaheen. xafladan ayaa waxa ka soo qayb galay marti sharaf tiro badan, mas'uuliyiin, siyaasiyiin, wasiirro ka socda xukuumadda, xildhibaano iyo marti sharaf kale. ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay ujeedka kulanka faahfaahiyey Xamse Baasho oo ku hadlayay afka jaaliyadda iyo ugaas Haaruun. waxay dawladda Holland dadaal ku jirtaa caawin iyo garab istaag uga taagan tahay dalkan ka soo jeeday Somaliland, taas oo markhaati ka tahay nolosha caawa Soomaaliya. dawladda Holland ku caawinayso waxyaabihii ka soo gaaray dalkii dadka bulshada suuqa Waaheen oo dhaqaale ahaan hantida ka gudubtay lagu qiyaasay $1 bilyan, taasoo xaddi lacagta aynu ka qiyaas qaadan karno inay waxyaabo badan oo dhinaca dhaqaalaha si guud u gaadhay dalka oo dhan. dadka ka dhacay suuqa Waaheen iyo dhibaatada gaadhay waxay wadaafday dad fara badan oo ku jiraan qaar aan hantiba ku lahayn suuqaas ee si maalinlaha ugu shaqaysan jiray. runtii waxa uu ka tilmaami karaa aafo qaran oo nugu dabku ka mid yahay aafooyinka dabiiciga. waxaan ku kalsoonahay shacabka Soomaaliya inay yihiin dad dulqaad badan, adkaysi badan, dhibaato kastoo dhacdana maareynteeda keena. waxaana taas ka markhaati ah Somaliland halka laga keenay kadib uu kabashada xooggan ee dhinac kasta ka samaysay. arrintan iminkan waxaan aaminsanahay inay ka soo qaban doonto waxna ka baran doonto sida looga hortago ama loo maareeyo dhibaatooyinka kuwan oo kale ah. waxaan u mahadnaqayaa dhallinyaradii soo qaban qaabisay xafladdan quruxda badan. waxaan iyaguna aad iyo aad ugu mahadnaqayaa jaaliyadda Holland ee hawshan iyaduna soo bandhigtay. oon ku hambaleynayo 27 Abriil oo maalintii boqortooyadooda loo dabaaldegay. geesta kale iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiintii kala duwanaa ee madasha ka soo qayb gashay oo uu ka mid ahaa maayirka magaalada Burco, wasiirka dastuurka Somaliland iyo aqoon-yahanad Sucaad Carmiye. madashan bilan aynu ugu gurmanayno walaalaheen. mar saddexaadka waxaan u mahad celinayaa ururkii soo qaban qaabiyey xafladan oo Xamse ugu horeeyo. marka kale waxaan u mahad celinayaa guud ahaan dawladda Holland iyo boqorkooda William Alexander oo maanta dhalashadiisii ay ku beegan tahay ugu talagalay inuu kaga qayb qaato gurmadka iyo baroordiiqda dhibaatada soo gaadhay Somaliland. mahadsantiin baan leenahay isaga iyo shacabka reer Hollandba. waxa isaguna mahadle iyaguna ururka dawladaha hoose ee Holland oo nagala shaqeeya arrimahan dhacay oo muddo imika 8 bilood aan ka wada shaqaynaynay arrimaha sidii looga hortagi lahaa ka hortagga masiibooyinka iyo maareyntooda. sida uu Xamse Baasho sheegay, anigu waxaan ka mid ahaa dadkii runtii waddanka Netherland ama Holland tegay 9-madii. waddankaasi wuxuu ahaa waddamadii si wanaagsan oo gobonimada leh u soo dhaweeyey. waxa weeyaan dadkeennii ubadkii ku dhashay ayaa maanta waxa weeyaan in badan oo ka mid ah waxa weeyaan hogaaminaya ama injineerka ama mas'uuliyiinka. wuxuu ahaa waddanka aynu markii aynu dalkeena dib u kabeynay runtii jaaliyaddeedii halkaa ku dhaqnay si weyn oo waafiya dalkeena dib u dhiskiisii hore uga qayb qaatay. hadday tahay dhammaan dhakhaatiirteena waaweyn ee gobolladu ay leeyihiin oo markaa gegi ahaa oo runtii aanu aada uga soo qayb qaadanay. waxaan mahad celin gaara siinayaa dhallinyarada soo abaabushay xafladan, dadka isu keentay ka soo jeeda Holland. waxaan hambalyo gaara u diraynaa dalka Holland oo maanta tahay their national day. intaa markaan ka gudbo annagu waxaana la yidhaahdaa gurmadka haweenka ee suuqa Waaheen. markaanu aragnay in guddiyo badan la sameeyey, waxa aanu aragnay inay jirto gaabkii haweenka uu jiro. marka waxaanu damacnay inaanu si gaara haweenka u abaabulno
waxoogaa uu ka ururino intii dadkii aan sugi karayn in ay lacag dalbadaan oo lacag la siiyaan aan ka gaadhsiinayna wax yar siisiino qaarkood in yaroo lacaga la siisiiyo qaarna dalaayado iyo kaariyoonayaal iyo kuraasi la siiyo ilaa 200 oo dumar ah in ka badan ayaanu ilaa hadda siinay in badan kale oo kusoo jirtaa xafladan ay noo soo abaabuleen dhalinyar reer Somaliland oo ka howlgala oo la shaqeeya safaaradda Holland markii ay noo yimaadeen ay yiraahdeen 17 bisha afraad waxa ku beegan maalintii qarannimada dalka Holland waxay jeclaadeen in la isku beego maalinta iyo in dareenka lala qaybsado dadkeenii ku ceedoobay amba dhibaatada ay ka soo gaadhay suuqa Waaheen. ugu dambeynna waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka diinta iyo awqaafta Somaliland ahna gudoomiyaha gurmadka suuqa Waaheen oo faahfaahiyay gurmadka ilaa iyo haatan loogu jiro sidii loogu gurman lahaa dadkii ku tabaaloobay isla markaasina ku barakacay suuqa Waaheen iyo gudoomiyaha suuqa Waaheen Cabdiqaadir Xuseen. waxay ogsoon tihiin in aanu bixinay fayskii koobaad ee aanu ugu gurmanaynay dadka nugulka ah ee dhibtu soo gaadhay oo lacag ilaa $1,800,000 in ka badan aanu sii daynay oo ay gaadhay dadkii jilicsanaa ee iyagu maalin maqdama dhergaanka ahaa ama maalintii waxa ay suuqa ka xasiliyaan dee ay nolol u ahayd qaybteedii koobaad fayskeedii koobaad inta aan ciid ku iman waxaanu doonaynaa insha allahu tacaala inaanu sii dayno fayskii labaad oo aanu waliba sidii hore si ka ballaaran aanu u bixino lacagta haddii alla ka dhigo inta ciidka ka horeysa oo madaxweynaha qaranku amar nagu siiyey inaanu degdeg aanu maaragtay u gaadhsiino dadka iyada oo aanu si weyn aan u kala shaandhaynaynay liisaskii dadkii halkaa wax ku noqday. suuqa Waaheen wuxuu ahaa suuq aad u ballaaran multi-bar bawsa soo jiidasho leh qurux badan indhuhu ay ku raaxaystaan maanta waxa uu yahay meel burbur leh dhas iyo waxaan meel indhahaagu aanay soo jiidan karin insha Allah waxaan rajaynayaa mustaqbalka inuu noqdo mid qurux badan ka wanaagsan sidii hore u ahaan jiray taasoo aan rajaynayno inaan isku tashanno annagoo adeegsanayna qurba joog iyo qulqul joogba iyo international community-ga. Xamse Geelle, telefishinka Saab, Hargeysa. qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya islaam iyo fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir 1 5 eber